Waxaa la qabtay basaas kale oo qayb weyn ka qaatay dilkii Allah u naxariistay hogaamiyihii Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. كشف الجاسوس الذي أرسل موقع المرشد الإيراني علي خامنئي waxaana soo bandhigtay dowladda Iiraan. Basaaskan waxa uu u dhashay Israa'iil waxaana iska dhigayay inay u dhashay Iiraan oo diyaasbara ah. Haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago xogtiisa oo dhammaystiran waana hubaa inaad yaabi doonto shaqooyinka uu qabtay iyo qaabka uu sirdoonnimada u fulinayay. Sidoo kale muuqaalka qirashadiisa ayaan kula wadaagayaa isaga oo dhammaystiran. Waxaa la shaaciyay nin la aaminsan yahay inuu yahay basaaskii diray xogtii goobta uu joogay hogaamiyihii sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei, qaybna ka ahaa dilka hogaamiyaha ka hor inta aan la dilin. Xogtaas oo loo gudbiyay sirdoonka Israa'iil ee Tel Aviv. Ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku dhawaaqday in basaas Yuhuud ah la qabtay kadib markii uu sheegay inuu yahay qof qurbad joog ah oo asal ahaan ka soo jeeda Iiraan oo dib ugu soo laabta dalka. Wuxuu watay qalab sawir iyo sidoo kale mid wax dhageysta oo aad u horumarsan iyo qalab lagu ogaado goobta qofka uu joogo, laakiin ugu dambeyn dhagartiisa ayaa lagu ogaaday qaab iyo meel uusan isagu filayn. Waxaana lagu qabtay xuduudka ay Iiraan la leedahay dalka Pakistan. Mid ka mid ah masaajidda uu ku tukan jiray ayaa fashilay kadib markii laga shakiyay qaab dhaqankiisa iyo ficilada uu sameynayo oo qaarkood ay ahaayeen kuwo shaki leh. Waxaana isla markiiba la xiray isaga oo ka gudbaya xuduudka Pakistan saacado yar kadib markii la dilay Ayatollah Ali Khamenei hogaamiyihii Iiraan. Waxa uu ku jiray safar uu rabay inuu uga baxsado Iiraan isagoo u gudbaya Pakistan halkaasna raba inuu uga sii baxo. Waxaan idiin soo gudbinaynaa muuqaalada daqiiqadihii ugu horreeyay qabashadiisa, qiraalkiisa, isaga oo ka sheekeynaya qaabka uu ku tababartay, habka uu ku barto luqadda, sida uu ku yimid, waxyaabaha uu isticmaalayay, qalabka uu adeegsanayay, cidda u fududeynaysa iyo sidoo kale shakhsiyaadkii la shaqeynaya. Haatan sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan ayaa weydiinaya, waxa uu yiri runta oo dhan noo sheeg. Sidee ayuu sheekadaadu ku bilaabatay? Sidee ayaadse ku ogaatay goobta hogaamiyaha sare ee Iiraan uu ku sugnaa? Waxa uu ku jawaabay, ma aanan ahayn qof asal ahaan ka soo jeeda Iiraan sida dadka aan u sheegay. Safarkayga Iiraan ma ahayn safar diini ah sida aan sheeganayay 2 bilood ee la soo dhaafay. Xaqiiqadu waxay tahay in tallaabo kasta oo safarkaasi ka mid ah ay ahayd qayb ka mid ah howlgal dheer oo la diyaarinayay sanado badan. Waxaan ku dhashay Tel Aviv, halkaas ayaana ku noolaa inta badan noloshayda. Laakiin sanado ka hor waxaa la ii doortay barnaamij tababar gaar ah. Halkaas wax walba ayay ka bilaabmeen. Tababarku ma ahayn mid military sida dadka qaarkood ay u maleynayaan, balse waxa uu ahaa tababar ku saabsan sida qofku uu dhex qarsoomi karo dadka ama bulshada. Waxaan bartay sida aan ugu ekaado qof caadi ah, sida aan si degan ugu hadlo iyo sida aan u abuuri lahaa sheeko nololeed oo qof kasta rumaysan karo. Waxa ugu horreeyay ee aan barto waxay ahayd luqadda Farisiga. Arrintu ma ahayn casharo luqadeed oo caadi ah. Waxaan sanado badan ku qaatay barashada Farisiga sida dadka wadooyinka ugu hadlaan. Waxaan bartay lahjadda, kaftanka, mahmaayooyinka, xitaa sidoo kale dadka qaabka ay u caroodaan iyo sida ay farxadda u muujiyaan ayaan bartay. Ujeedadu ma ahayn kaliya inaan fahmo luqadda, balse inaan ku noolaado ayay ahayd. Waxay ugu dhihi jireen, basaaska ugu wanaagsan waa kan aan jiritaankiisa la dareemin. Waxaan sidoo kale bartay wax badan oo ku saabsan bulshada Iiraan, caadooyinka maalinlaha ah, suuqyada, maqaayadaha, masaajidda iyo sida loo tukado. Waxaan ku tababartay salaada sida ay ugu tukadaan dadka halkaasi jooga. Waxaan xafiday ducooyin ay akhriyaan dadka soo booqda goobaha barakaysan. Sidoo kale waxaan xafiday magacyada wadooyinka iyo goobaha si aan u ekaado qof dalka muddo dheer yaqaanay. Kadib waxaa la ii siiyay aqoonsi cusub iyo sheeko nololeed dhammaystiran. Muslim asal ahaan ka soo jeeda Iiraan oo ku barbaaray Yurub oo sanado badan ku riyoonayay inuu booqdo goobaha diiniga ah ee Iiraan. Sheekadu waxay ahayd mid aad u fudud laakiin aad ii qancisay. Markii aan soo galay Iiraan, waxaan ogaa in xeerka ugu horreeya ee howlgalkani uu yahay inaan u ekaado qof gebi ahaanba caadi ah. Sidaa darteed waxaan sameeyay wixii qof kasta oo soo booqda uu samayn lahaa. Waxaan aaday masaajidda, waan tukaday, waxaan ku wareegay suuqyada, waxaan sawirro ka qaaday sida ay sameeyaan dadka qurbaha ka yimaada. Qofna wax shaki ah ma uusan iga qabin. Xitaa dad badan ayaa i soo dhaweeyay oo i caawiyay. Qaar baa igu casuumay guryahooda, qaar kalena waxay ii tilmaameen meelaha aan booqan karo. Waxaan dhageysanayay sheekooyinkooda, anigu waxaan u sheegayay sheekadayda oo aan si fiican u xafiday. Laakiin waxaasoo dhan waxaan ku hoos waday howlgal sirdoon oo aad u weyn. Kaamiradaha aan watay ma ahayn kaliya kaamirad sawir qaada. Waxay ahayd qaab horumarsan oo qaadi kara faahfaahin aan qof caadi ah si fudud u arki karin.
waxay awood u lahayd inay baarto ama akhriso kuleylka ka imaanaya meel ama shay si loo ogaado xog ku saabsan waxa halkaasi ka jira, iyo inay ogaato qalabka elektarooniga ah ee ku dhow. Laakiin kaamiradu ma ahayn waxa ugu muhiimsan ee ku jira boorsadeeda. Qalabka ugu muhiimsan waxay u ekaayeen waxyaabo caadi ah: jaajarada taleefanka iyo batariyada la qaadi karo. Qof kasta oo arkana waxa uu u malayn lahaa inay yihiin qalab safar, laakiin dhab ahaantii ma ahayn jaajar caadi ah. Gudaha mid kasta waxaa ku jiray qalab yar oo gudbin kara calaamado GPS ah oo si sax ah u tilmaami kara goobta. Hawsheedu waxay u muuqanaysay mid fudud, laakiin fulinteedu way adkeyd. Waxaan qalabkan dhigay meelo si taxaddar leh loo doortay, mararka qaar aagagga waddooyinka ay maraan kolonyada ammaanku, mararka qaar aagga dhismayaal xasaasi ah, mararka qaarna meelo caadi u muuqda laakiin u dhow goobaha kormeerka. Marka la isku daro calaamadaha qalabkan, waxaa suuragal noqotay in la sameeyo khariirad muujinaysa dhaqdhaqaaqa waddooyinka iyo meelaha ku hareeraysan. Waxaan ku wareegay magaalooyin kala duwan oo Iiraan ku yaalla. Waxaan ka bilaabay Mashhad, kadib Qom, kadib Ahvaz, kadib Dahraan ayaan u gudbay. Magaalo kasta waxaan iska dhigayay qof dalxiise caadi ah, laakiin dhab ahaantii waxaan kormeerayay waddooyinka. Waxaan baranayay waqtiga dhaqdhaqaaqa, waxaan xafiday faahfaahinta waddooyinka iyo marinada. Markii ugu khatarta badneed waxay ahayd markii aan ku dhowaaday aagga ay ka shaqaynayaan ilaalada gaarka ah ee hogaamiyihii Iiraan Cali Khamenei. Ma sahlanayn in halkaasi la gaaro, sababtoo ah waxaa jiray baro hubin ama koontaroolo iyo kormeer joogto ah. Sidaa darteed, si toos ah uguma aana dhowaan, balse maalmo yar ayaan meel fog ka kormeerayay. Waxaan fariisan jiray maqaayadaha si aan isaga dhigo qof sawir qaadaya, laakiin dhab ahaantii waxaan kormeerayay waddooyinka iyo marinada ay maraan kolonyada ammaanka. Markii dambe waxaan fahmay qaabka dhaqdhaqaaqa iyo waddooyinka ay isticmaalaan. Mar ayaan u dhowaaday meel ka dhow intii aan filayay. Waxaan istaagay waddo u dhow goob ay isticmaalaan ilaaladiisa. Wax shaki ah ma samayn, kaliya waxaan qaaday sawir sida qof kasta oo kale. Laakiin sawiradaasi waxaa ku jiray faahfaahinno badan oo ku saabsan waddooyinka, baraha kormeerka, iyo dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah ee hogaamiyaha. Kadib waxaan qayb ka mid ah xogta u diray kanaalo sir ah oo ku xiran sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaano Shin Bet. Haa, aniga ayaa ahaa qofkii gudbiyay xogta ku saabsan goobta iyo dhaqdhaqaaqa hogaamiyaha. Xogtaasi ma ahayn hal warbixin oo keliya, balse waxay ahayd qaybo yaryar oo markii la isu geeyo noqonaya sawir weyn oo wax lagu samayn karo. Waxaan sidoo kale dareemayay inay jiraan kaamirado kale oo ku xiran waddooyinka oo dad kale oo basaasiin ah ku xireen, sababtoo ah waddooyinka qaar ee aan tagayo waxaan ka dareemayay inay ila socdeen sirdoonka, sababtoo ah waxay ii soo diri jireen sawiradeeda. Mararka qaarna meelaha aan joogo ayay ii sheegi jireen. Waxay sidoo kale igu wargelin jireen inaanan wax khiyaano ah samayn karin, lana ila socdo. Sidoo kale xogo ka dheeraada kuwa aan gudbinayo ayay iyagu xitaa helayeen. Waxayna sidoo kale haysteen qalab iyo dad kale oo iga hormarsan oo iyaguna gudbinaya xogta kaamiradahan ku xiraya waddooyinka. Laakiin xilliga ugu khatarta badneed ee hawshan oo dhan ma ahayn markii aan qalab dhigay ama markii aan u dhowaaday meelaha xasaasiga ah. Xilligii ugu khatarta badnaa wuxuu ahaa xilli aan ku sugnaa gudaha masaajidka. Maalin ayaan la tukaday dad badan. Markii dadka oo dhan ay sujuudeen, ayaan ilbiriqsi madaxa kor u qaaday si aan u hubiyo in kaamirada yareed ee aan horay u dhigay ay weli shaqaynayso. Ma aanan ogeyn kaamiradaha ammaanka masaajidka inay duubayaan. 2 ilbiriqsi oo keliya ah ayaa shaki ugu bilaabmay. Kadib wax walba way isbedeleen. Inkastoo isla markiiba aanan dareemin, haddana waxaan dareemay in dadku si gaar ah ii fiirinayaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sii watay dhaqdhaqaaqyadeydii sidii inaysan waxba dhicin. 2 bilood kadib, aniga oo magaalooyin badan ku wareegay oo u malaynaya in hawshu ay ku dhowdahay dhammaad, waxaan ururiyay xogtii la iga rabo oo dhan waana diray. Waxaan dhigay qalabka meelihii loogu talagalay ama loo qorsheeyay. Markii dagaalka lagu dhawaaqay oo Mareykanka iyo Israa'iil ay fooda dareen Iiraan, waxaan isku diyaariyay inaan ka baxo Iiraan una gudbo Bakistaan si aan ugu laabto Tel Aviv. Laakiin xadka ayay ilaalada kacaanka iga qabteen, waxayna heleen xiriirkii iyo wicitaanadii igala dhexeeyay Shin Bet iyo Mossad. Waqtigaasi warbaahinta ayaa ku dhawaaqday in Cali Khamenei la dilay. Waxayna noqotay goor dambe. Waqti aan ku baxsado haba yaraatee ma aanan helin. Ugu dambeyn waa la i soo qabtay. Qabashadeedana waxaa sabab u ahaa qaladaad yaryar oo iga dhacay aniga oo ku jira masaajid. Iyo sidoo kale waxaan aaminsanahay inay jireen basaasiin kale oo gacanta lagu soo dhigay, sidoo kalena sheegay inay jiraan dad kale oo hawshan qayb ka ahaa. Haatan waxaan ku jiraa gacanta ciidamada, amnigeygana iyaga ayaa gacanta ku haya. Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah basaasiintii la qabtay, waxaanu ahaa qofkii ugu horreeyay ee dabcan la qabto. Waxa uuna sheegay inuu qayb ka ahaa dilkii lagu dilay hogaamiyihii Ayatollah Cali Khamenei oo la sheegay Israa'iil inay waday
howlgal muddo dhowr sano ah si ninkan loo dilo ugu dambeynna ay ku guuleysatay. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii halka aan la soo gaartay fadlan sheergay saaxiibada la wadaag. haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biir waa mahadsantahay.